They call me Ramzan. hey assalaamu calaykum waa walaalkiin Khaalid Cabdiraxmaan ka soo qaad inaad duubtay muuqaal aad u qurux badan oo cajiiba laakiin markii dambe waxaad aragtay in midabka cirka aanu si fiican u muuqan ama aanu fiicnayn xaaladaas marka waxaad bedeli kartaa midabka cirka ama waxa loo yaqaano sky replacement si aad u xaliso dhibta daba maanta muuqaalkeenan waxaan ku baran doonaa sida aad midabka cirka ku bedeli lahayd adigoo isticmaalaya KineMaster. Let's go bro. Si toos ah aynu galno muuqaalkeena hadaba. soo dhawaada mar kale talaabada koobaad soo diyaarso muuqaalkaaga ugu horeyn anigu waxaan isticmaali doonaa muuqaalkan kaas oo aad ka heli karto pixels.com. talaabada labaad waxa aad baadhaa pixels kadibna ku qor halkan sky oo micnaheedu yahay cir kadib baad waxaad arki kartaa hal qaalo cirar ah oo far badan waxaad la soo degi kartaa muuqaalka cirka ah ee ku habboon muuqaalkaaga. talaabada saddexaad soo furo KineMaster-kaaga kadib waxaad tagtaa media soona gasho muuqaalka aad u baahanayd inaad bedesho kadib markaad soo gashto muuqaalka ku dhufo muuqaalka kadibna hoos u bax ilaa aad ka arkayso adjustment muuqaalka contrastigiisa waxaad ka dhigtaa ilaa 72 iyo 60 meelaha saturationka dalac ilaa 40 iyo meelaha hadda waxay ku xidhan tahay muuqaalkaaga sida uu yahay haddaad u baahan tahay waxaad gaabin kartaa iftiinka muuqaalka markaad intaas samaysay kadib ku soo noqo muuqaalkaagii kadib markaad intaas soo samayso waxaad soo gashataa muuqaalkii cirka ee aad la soo degtay markii hore ku dhufa media kadibna soo gasho muuqaalka waa kan muuqaalkii waxaad ku dhufataa layerka muuqaalkan cirka ah kadibna waxaad u baxdaa hoos ilaa aad ka arkayso crop waxaad furataa calaamada maskiga kadibna crop gare ama jar muuqaalka inta madow tusaale ahaan hadda intaasaan jari doonaa kadibna halkan ay ku qoran tahay feeder ayaa dalici doontaa si uu muuqaalku geesaha khafiif uga noqdo loona maleeyo mid realistic ah ama dhaba kadib ku dhufa calaamada saxda ah waxaad samaysaa muuqaalka weyne ama ballaari markaa intaas samayso waxaa tahay hadda labada muuqaal kaliya inay saaran yihiin si aan u bedelno markaa muuqaalka cirka ama aan isku dhex gelinno waxaad ku dhufataa layerka muuqaalka ama layerka kadibna waxaad u baxdaa hoos ilaa aad ka helayso blending kadib halkan waxaad ka dhigtaa overlay ku dhufo hadda waxaad aragtaa inay isdhex galeen labadii muuqaal lana malaynayo in muuqaalkan yahay kii haddii aad jeclaysan midabka cirka noocan ah waxaad tegi kartaa layerka kadibna waxaad u baxdaa hoos ilaa aad ka helayso color filter kan waxaad ka heli kartaa color filters aad u fara badan oo kala duwan tusaale ahaan midka ku qanciyaad ka dhigi doontaa basic-ka tegi kartaa warm-ka tegi kartaa cool-ka tegi kartaa vivid-ka tegi kartaa iyo kuwo kale oo fara badan ee halkan ku jira dad u baahan tahay color filterskan ama muuqaal saameeyaashan ayaad saaran doontaa hadba midkaad u baahan tahay ee ku qanciya hambalyo waxaad ku guulaysatay inaad bedesho midabka cirka ee muuqaalkaaga halkaas maanta inagu joogi doonaa muuqaalkeenu intaanan ka bixin muuqaalka waxaan filayaa inaan ilaaway hal shay Stop it. Get some help. aynu shootout siino asxaabtii ka soo bixisay commentiga muuqaalkii ka horreeyay
dad u baahan tahay adiguna in lagu sameeyo shoot out kaliya waxaad samaysaa like dhan muuqaalka commentina ka bixi muuqaalka okay waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar ka dhiibo faalladaada iyo fikirkaaga la wadaag walaalahaaga kale subscribe na dheh channelka haddii aad ku cusub tahay inta ku kulmi doono muuqaalka ku xiga waa anigoo Khalid Cabdiraxmaan oo idin leh noqdo kuwa hal abuur leh nabadna ahaada Dum